musuq maasuq yahay siyaad uga maarsataa micnahu haydin dhacee ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijkii gaarka oo aynu kaga hadlaynay dhibaatada musuq maasuqu uu leeyahay iyo sida looga hortagi karo oo galabta xiise gaara leh isla markaana abaalmarino qaaliya barnaamijka gudihiisa aynu ku bixin doonno galabta haddii ilaah laga helo waa mar kale iyo barnaamijkeenii gaarka ahaa oo ka hortaga musuq maasuqa hay-adda markhaati ayaa barnaamijka gacan ka geysanaysa idaacadda banaadir ee magaalada muqdisho ayaana baahinaysa haddaba dhegeystayaasha galabta waxaan u sheegayaa in barnaamijka qaybaha dambe dooda fikirka markaasi qofka barnaamijka sheekada si fiican u dhageysteen nuxurka sheekada iyo waxa barnaamijku ku saabsan yahay la socota in abaalmarino lacageed oo markaasi uu heli doono isla markaana loo soo tuuri doono lacagtaasi uu ku afuri doono sidaa daraaddeed dhegeysta waxaan leenahay barnaamijka dhegta ku hay oo galabta noqon midka ka faa'iideysta dhanka abaalmarina qaybaha dambe qaadadka teleefanada dhegeystayaasha fursad aanayaan u siin doonaa balse dhegeystayaal galabta waxaynu ka hadlaynaa qayb kale oo musuq maasuq ah sidaa daraaddeed marka hore sheekada ayaan soo qabanayaa qodobka dhegeyste dooda iyo weliba fikirka oo su-aalo dhegeystayaasha weydiin doono ayaa ku xigi doona sidaa barnaamijka ayuu u tixnaan doonaa balse maadaama sheekada galabta su-aal layska weydiinayo oo waxay ku saabsan tahay iyo gudaheeda sheekooyinkaasi lagu helayo abaalmarino ma sheegayo sheekada qaybta ay tahay galabta iyo waxay ku saabsan tahay balse dhuux oo ujeedada ogow kadibna su-aal ahaan uga jawaab oo abaalmarin lacageed galabta ku hel ayaynu ku leenahay dhegeyste marka hore barnaamijku waxaa farsamaynaya qadar xuseen axmed qadar yare waxaan la socodsiinaya anigoo abdicays cabdullaahi maxamed riyeli mar kale ramadaan kariim dhegeysi guddoon wacan sheekada wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga marsataan micnuu haydin dhacee ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal maanta xarigaa laga jaray waxaa barateen kawaan bolol ah jiingadiisa ay hoobanayso
dhiigga dhulka u yaalo midkaan casri waaye inkastoo weli aan xoojin oo aan ka dhigin derbi haddana waa jingad nooca Soomaalida bacweynaha u taqaano marka sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in qayb dadka degmada loogu wareejiyo maamulkii naga sareeyay waxa uu dadku wareejiya laakiin dadkan haddii la yiraahdo ku wareega waa la isku dagaalaya sidaa daraaddeed waa in lacag ka dhignaa waa in lacag laga dhigaa qol loo kireynaa weliba qol waa la gadaa birin dawladda cashuur ay ka qaadaysaa laakiin maanta qofka qolka waa gadana waa go'aan dawlo waaye qof walba waxaa looga baahan yahay liiskii waa kana waa diyaar dad fara badan fayl igu jira waxaan ka bilaabayaa si loo kala horeeyaan ka bilaabayaa السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو مقعد شيء. ودوهاي محمد علي علوسو. ليس كان كبارش. محمد علي علوسو محمد دتك أور الزوانجليات. دتك أوري. الزوانجليات. ما شاء الله لمركوب قرنتاين. لمركوب هيه. ديار متى محمد؟ ما هي صباح مركو أنت كشغل بلعبة مركا. محمد ربط وكل غالسين خوانك ميزسك. هيه. كان الباب كحجو. هيه. لبكم وا. $2,000 مثلا كان الباب كحجو waa $2,000 waa qolka albaabka xigo meesha islaamu ay ka soo galayaan $2,000 waa wajiga koowaad qolka ku xigo waxa waaye $1,900 waa $1,800 haye kuwa dhax kuwa $1,800 ma dhaafaan inta kale $1,800 waxa ugu labada gees iyo albaabada meesha ku aadeen saas waa inuu iska dan yaray hada gadaal imaris ka waran waxta isqiig ilaahay siiyay oo kuwa geeskaas jiraan hada iska $1,800 waa كثير ما جرتو هذا ضير تسوق عشان هذيك نقنع صداها تاي وضيرها محتها قنع سينو هذا ضير تاي كمان قريب كيمسو قنع تاي ما ناي هذا هذه حتى قرابني محتى فير واسنا قانا هذيك مركا إذا وجهي حتى فير صار ربع حافظ أنت سلدك إن هذه هي حمين هذه ما جرتو السلام عليكم أنا أدون قرابة منهم ورجنا قرابة من لما قبيلان كلنا وأخانا أوراق تبع هاي حتى هذا معلومة أوراق مسكاش قصتي dadka la diiwaan galiyaan kamid ah rob loo qaqana $2,000 ku qabtay qolka geeska bilowga ku qabtay in adeerkiina taarto moogta adiga sax waxa waaye waxaad sida ugu qabataan ka dareemay rob lacagtana ka qaadaye soo dhigorto adiga alaabtii wixii soo dhigo lacagta lacagta saa'id u kulushay sida lacagtana ka qaadi doon adiga isku sheegi maynee diyaar ma tahay diyaar laakiin qaybta adiga soo doonatay ma qaybta kawaanka ahaa ما قيبت دكامدا ما كواني ديغا خليغان غلي كرانيو هاي من مغالدي سكجا كينا يعني بعد لان كدغ ربا عرو وينا ماشي فرو ولا سودا اني سا afar kun iyo xogaa wala socda ma aniga lacag li weydiina hade qolkan waa qolka aad diifanayso kale niyo adduunkan meelaha dadka ehelka meel la galeen ma xasuusata xilliga aad xaafadada joogtay mid samay warqadan saxiix haye $4,000 ku qor lacag bixin daad rabto laakiin warqadan dadka ha arkaan iga saxiix lacagta dhow dil weydiin hadii saxiix $4,000 warqadan sameystay waa saxiixa wax ma ku helayo haye waa diyaar adii mi maqle ikaad walaal haye شرط وحاك قيلني سي كن أنك قيلنا يواسح وحاك قيلني سي كن $800 فير ماشي حصيحا والله العقد هو بدنته أفر كن على غاد وأنا نادركي كن أنك غادو إن نادركي وأنا نادركي فهمت فأجيدا نو ماشي جهنج حمية روح ندول ذا أسكره أوكي لعنتها ولا غير بس كن $800 أنا واحد بهنا كن لو كن أنا بلا غور كن $800 أقولها أو مش سما أقولها كن $800 سيال كان رئيس أوكي هاي السلام عليكم عليكم السلام فير أبو ماشي عم حكم قلة حلوس كوني سديد بقولي أفركون أعود أنا كافيري حد ولد ملمية وحن رباب اسمها السبان كربا قلاني وجانس بري عيدا من الشيبيا كو دولده وصل صد عندنا ذات كان جيت كون عصنا أنا ولا حاق ربا ماش دهب إن غداه حاسس أنا حتى إيش شيء دي الحاقة هي ده الحاقين دولده وصل شقيق عن شقم كل هي قال كان مدي كري مش كريم جرتو محجر مركب لو كان دولده أسكره maalinta kow lacag baxsee hal mar aan lambarkaaga waxa goosanay kadib canshuur laga qaadaa okay lambarkaaga goosanaa muxuu yahay qayb tirta aniga waxaan rabaa shopping qayb shopping waa qaybaha ugu fiican qayb shopping karta qaybta shopping waa $2,800
dowladda alaab idhaysaa 2800 dollar iga qaadan dhisay meesha dada dhisay laba kala saac inta ugu dhisay askara meesha wiilo asbaqalno meesha iga kireeyaan ku dhahay waxa asir kireem ah dowladda askale warka ka raadinaya dowladda askale heedaan in kireeyaan horta ahan ogaa ma fahanti lacagtan suuqa madooba aad rabtidni aniga miiga qaadaysid ma ila shifaada kartaa meesha mustaqbalku ay siinay haya maxaa jiro 2800 ma wata 2800 iska dhaafe dhulkan dawladda ay ku deeqday inaan $1 ka bixinaynin maxaa isku haystiin walaal abaa waxaan isku haysanaa ninkaan meesha suq wax buuxa ani waxba soo maraadsanniyo wax kala raadinaya aniga wax buuxa ma lahaane fiiri foomku waa buuxa adiga fiiri musuq magaalkan ku joogtaa laga aqbali ma abaa fiiri ninkaanita wuxuu leeyahay suuqan waxa dhisay dawladda hoose waa ogtahay anaka dhan waa ognahay qof walba ogtahay halkaan cabbaar dhib taagnaa wiil wuu handado 2800 ka qaada kawaanka raba laftarkeyga waa maqlayaa waa maqlayaa min afar kun wiil ana ka qaadi doonay alaab soo dhiga alis ku saxiix dadka uga qaadanaya naadeerkaya tahay macna dadka uga qaadanaya mar dambe ana ka qaadan doona maqlaa arda ku soo galo waxa ay 100 iga kireey kasir kirma meeshan dawladda dhistay warka dawladda dhistay ay gal aniga qof kaale ma laha dawladda dadka u dhista kamid tahay dawladda aniga shoobikeyga soo qaaday ninkaan musuqmaasuq oo wada soconaayo maaha mana u soconayso marka ilaa yacla isla gaari karaa isla dacwoon karaa ilaa xafiiskaas la tagi karaa musuqmaasuq warqadan ku qorto wixii roo aniga inuu 2800 ka indhaa dawladda hoose dhistay ana alaabteedina waa dhiganaya haduu awood leeyahay ani adigaan garabkaaga ahay waxyaabahan oo kale raadiyaa ilaa iyo waxaan isku quusanayna xafiiska gabadha degmada oo tagayna waxa wax dheedheela ma aha waa wax lagu dheedheelooyo waa dhis dawladda hoose loo dhistay warbaabaan uu rabaa lacag inuu ku qaato ninka oo fahmayay wiil hadda ku risdar baan ka qaada ani ma iga qaadaayo السلام عليكم وعليكم السلام هل تدل بنا بوغي ماشي ولا سيستا alaabta waa soo niyo aad meel shakri dadka aad ku imaanayaan ana maanta laga bilaabo birish jilaada baqban idaacadahan ka hadlahay waxaan leeyahay dukaamanku way buuxsameen aan leeyahay wax buuxsameen jiraan dadka aad u tagaya sootan ku dijiimesh xaladahay intaas lacag diibana ku riixay sidaas hoose meeshana way xiran tahay mama waxay ahayd macala muuqandoone macala ismoogaan ha ugu dhicin mama waxay ahayd macala muuqandoone musuqa cune muuqandoone muba naga baqay xataa maxaatiin lama ku qoro waxaan ala oga doontida ganacsatada taa ganacsatada ku dheerisho horta adiga ku jid ganacsatada suu garabkiisa la qonna adiga soo sigaad inuu burburaas ku soo kaaga burburaya ma keenaysid meesha soo galan kuwan tayada la soo dhigin taada lama keenaayo wala saaro hada shaqo waa dajinaya ku dhaxlo ma dajinaysid waxa ka bilowday albaabada u balan qeyb waxa sadal waay gabdhood ka shaqeena labadan gabdhood waa kuwa jidka dukaan ganacsi laga qaaday ee la canshuur hortiisa alaab ku daansi jiray haninkaan adaa tuuga warqada beenta tuugnimo wata haninkaan qofkii tuug ah sharciga keenaya sharciga kala saaraya anaga kaama hareyna saaxiib ilaa ay sharciga kula tageena xafiiska ilaa ay xafiiska kaama hareyno ilaa ay xafiiska kala tageena wuu buuxa iyo wala yahay wala laga dhacay ma socona saaxiib nahar qaba ma ka hareyna anaka maanta dheexad way dhamaatay warato warataadi ka fiican oo adeer waxba lagu siinin dawladda Soomaaliyeed waliba qaybta dawladda hoose dhisatay dhulkaan Soomaaliyeed u dhistay adoo kaata ingreesh ana laba war wuxuu rabaa ahayd ana hor qabanaya isagoo hal shaati wato ana magaalada maraya wixii mataqaanin way hor qabanaa saani hor qabanaya waratada alaabtina la qaadan ee xabsigan li wada gelina meeshaan ma ka taliyo warahay ma horta adikoo buuqay xafiisyada lama soo galo tartiib hal dago tag hal dago xaaladda daj waa daganahay haye maxaa dhacay sidee wax u jiraan ii sheeg sidee wax u jiraan aan ku sheego ii sheeg dawladda hoose waxay dhistay dukaamo ay ugu tala gashay dadka ayada ilaalinaysa nidaamka suuqa waasa marka dadkii loo dhisay ka midnahay naga waasa
aniga hadda gabadhan oo waxaan u imaaday ninkan ay haystaan haye wax badan baa agtooda taagnaa hadalkooda aan dhageysanay haye ninkan iyo asagoo wada hadlayo kana uu leeyahay $2,000 inta iigu saxiix aan ka siiyaan leeyahay hebel in adeerkaya taa afar maxaa la dhahay iigu soo celi $4,000 aan ka qaadaa leeyahay saxiix si aan kan uga qaato 1800 haye warqada aad ii saxiix lacag dib baan mar dambe kaaga qaadan doonaaye haye waa gabadhan u timid haye dukaamadii sidii faaruq u yihiin marka u timid gabadhii wuxuu isku dayay inuu handado oo yiraahdo dukaamanka way dhamaadeen maxaa la wax faaruqa ma jiraan haye marka aniga gadaashiisa taagnaa wax faaruqa ma jiraan isla markiina hoos wuxuu ka leeyahay waa faaruq laakiin lacag ku gadanaya marka taas wax qabtaa shacabka maya taliyeen aan ka dhaxgalo walaashay macaan warkeeda haye ninka waxa uu xil saartay inuu bixiyo dhulka aad u dhistay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka danyarta waratada waa sax wuxuu keenay warqadan asaan gacantiisa ka dafay eeg warqadan akhri taliya adiga waxa lacag ku qoran uu dadka daldalay $4,000 wasuulka asaartay ninka ma qalmo waxaan lacaga wax loogu tala galay in dadka laga qaado iyo mid u dhow midna ma anigaan hadda kula hadlaaya wiilkaas hadda geeska taagan iyo kaa madow xagga taagan asaga asla joogeen kan wuxuu yiri 4,000 iigu qor si aan kan 2018 uga qaado ina adeerkaya taadiga dib aan kaaga qaadana kaas wuxuu yiri qolka asaaxan jirtay miyaad ilowday ka booti yiri adiga iska qornoo saadka uga qaato aan inta soo taaganahay ay kala ka ayaga isku mashquulsan wiilkaas miskiinka xum maqlayna 1800 laga qaado jeebkaana lagu haystaa ma garatay aniga waxaan iri qoraalkan mid iga kirey haye ana ogina dawladda hoose dadka anigoo kale ay u dhistay ay iga kirey haye ma aha kiro oo yiri dawladda dhistay warka arba kaas u ahaa waxa ay okay aad dawladda dhistay qol isii alaabta aan dhigto wuxuu yiri adiga ka qaybteerta shoobi karaba way tu lacag fiican haysato 2,800 soo dhigay haye 2,800 iska dhaaf waxana dawladda hoose ay dhistay $1 ma dhiibaya haye hadee noqoto saasne waa raacaysa waa maranay abaaya noo imaaday wiilkaas ilaa hadda waa warku sugaya wixii ku biisho bad hadee dheesh dhab noqotaan lacagtiis way ceshan doona hadee dhab noqon aniga xataa adi aad lacag dhiibni waa sida looga qaaday wiilkaas hadal ma bageysaninba tali marka aniga dhageyso iikaadi qaano xayran ganacsato waa weyn anaga dalka laga qadariyo ganacsiisku wada ganacsada tay dhageyso ka arkay iikaadi maalmaha kamid oo ay iimaan doontaa cilmaadi ku iimaana السلام عليكم وكادي بل ويلكن انا ما اديك ويمانا اديك وكادي انا ادير وكاي اديك انا قد قنعستان انا ما اديك ويمانا انا ما هذا لعقتينا هذا عفيسكي بعد بناك لعقتيدا هذا اديك بناك تقدلك هذا لعق حكمت ولا اركب بناك دقيت اديك ورقدان جوابك بخي ورقدان جوابه waxa wadatay waratada ida wadatay warqada ma ida warata ma soo wadaada wadatay markii waana wadka ka hadalno gabadhan mutaqaanadii gabadhan waa qanaa ka hadlo haday uu lahaana wadka ka talinaada ka talinaada ku sheegaani suqdiid balira waxa ay ka soo horjeedaa musuqmaasuq annagana waxa aan la dagaalayna waa musuqmaasuq maanta waxa kugu cadaadina waa musuqmaasuq waxaan ku sheegayaa in xilka uma qalma kan kama qal uma qalma xilka dadku waana qaadanayno ana xilka wax u qabato musuqmaasuq ma yan fahansiyo meeshaan hadii la yiraahdo maanta cid kasta u banaan tahay la isku dilaa Soomaalida taqaana $4,000 ma taqaana la isku dilaa fiiri Soomaalidu waa dad aad u badan meeshaan waa tirayro kooban u qayb hadii inta qofooday qaadaa la siinaya xilkan waa ka wareegi saacan wixii ka dambeeyay musuqmaasuqna ما دونينا مسوماسق ومنهن ما دونينا مسوماسق دين وما كنت
musuq maasuq yahay si aad uga marsataan micnuu haydin dhece ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal mas-uuliyadiyo xilkaasi kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha loogu dhaco ayuu musuq maasuq yahay qaybaha dhexe ee barnaamijkii gaarka ah ee musuq maasuqa ayaynu soo gaarnay haddaba dhegaystay khadka soo gal oo sheekadii qaabka aad u dhegaysanaysa ka jawaab oo abaalmarin lacageed qaado waa abaalmarin lacag waa kaash taleefonka ayay ku soo dhacaysaa sidaa daraaddeed haddii aad dhegaysatay balse sida barnaamijkaba caadada inoogu ahaa mid ka mid a martida haddaba dhegaystayaal maanta barnaamijka waxaynu ku eegaynaa waxaa la ansixiyey dhowaan dastuurka maamulka gobolada dhexe kaasi oo qayladhaan fara badan ay ka taagneed iyo cabasho qaar ka mid a dadkii markaasi qaabka dastuurka loo ansixiyey kasoo horjeedan waxay sheegeen in dastuurka meelo fara badan ay ka dhalilayeen si kastaba ergooyinkii way ansixiyeen daahir maxamuud afrax oo ka mid ah guddiga erkooyinka ayaan wax ka weydiiyey in dastuurkaasi la ansixiyey iyo wararka sheegaya in musuq maasuq uu jiro intaba adiga waxaa soo xaadirtay 351 ergo marka waxaa ansixisay 310 way diideen 29 way ka taasoo ansax ku noqday marka majority qaar ka mid ah odayaasha ma saxba in ay ka soo horjeesteen qaabka loo ansixinayo dastuurka oo ay muran sameeyeen inta aan la ansixin dastuurka ka hor maya intaan dastuurka la ansixin urubiyadii ka hadlayay wax ku darista iyo saxiixda dastuurka ayaa waxay bilaabeen doodihii ay hore u soo qaateen inay meesha ka hadlaan iyo wixii sicid u baahan ay sheegaan wixii la ansixinayna ay ka hadlaan marka 5 group ay ahaayeen 5 group mid kamid ah waxaan ahaa xogeyn groupkii shanaad markii aan dhameynay ka bacdi waxaa bilaabmatay in laga hadlo sidii loogu codeyn lahaa waxaa maanta timaaday 350 ergo marka 310 ergo waxay wada doorteen ee wada ansixiyeen dastuurkii 29 way ka aamustay 29 way ka aamustay 12 way diideen marka dastuurka sida ay lagu ansixiyay ma leedahay ee maamulka gobolada ayaa dastuurka lagu ansixiyay ayadoona meeshii aysan ka dhicin wax qalalaasa ummadii farxad haystii caalankii galmudugna waa loo daaray caalankii waa la tusiyay wixii oo dhan waa isku raaceen xuduuda meesha ku ogtahay ilaa iyo nugaal inay tahay waa la wada ansixiyay si habsamii doodihii iyo ansixintii iyo ku daristii iyo waxaas oo dhan way naga akhbareen guddiga farsamada iyo sharci yaqaanada sida ay hawshii loo go'aangalay arrintiina waa la ansixiyay dastuurkii ayadoona muran ka taagneen waa maasanta daahir wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhece ninkii moogowna maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga marsataan micnuu haydin dhece ninkii moogowna maqal mas-uuliyadiyo xilkaasi kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha loogu dhaco ayuu musuq maasuq yahay haddaba dhegaystayaasha qaadadka taleefanada galabta waxay naga soo wici karaan taleefanka 64 waa 64 lambarkii hore dooda aynu ka qaban jirnay galabta lambarkan ayaynu ku bedelnay lambarkaasi waxaa loo wareejiyey qaybta tartamada quraan akhriska sidaa daraaddeed dhegeysta waxaad naga soo wici kartaa 64
25 waa 64 25 waa lambarka cusub ee dooda barnaamijka galabta aad nagala qayb geli karto dhegeystaha ugu horeeya ee qadka ku jira ayaan jeclahay inaan fursad siiyo si uu barnaamijka markaasi igala qayb qaato asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaaga iyo deegaanka aad iga soo wacayso walaal waxaan kaasoo magacayga waa cabdiqaadir daahir waxaan kaa soo wacay degmada wardhi ee gobolka banaadir cabdiqaadir barnaamijka ma la socotay hani wax yar waa dooda way dhaaftay laakiin wax yar inay u su-aalka garan lahaa cabdiqaadir shekada barnaamijka ma dhegeysanaysay qaybta hore ha waxaan dhegeysanaya sheekada gobolada dhexe maamulka looga sheegana soo sheekada barnaamijka aynu ku furnay musuq maasuq ma la socotay ha musuq maasuq sax musuq maasuq hadaan fahmay inuu musuq maasuq waa Soomaalida waa baxsay ana jiraan amsan walba ka jiraan hay galabta sheekada maxaan uga hadlaynaa taqana dhegeystayaas barnaamijka ma socon kuri jeer waan ka raali gelinayaa laakiin wuu jeclaa dad inuu ka qayb galo haddaba dhegeyste su'aalaha waxaan iska weydiin doonaa qaabka sheekada maanta iyo waxa ay ku saabsaneed haddii aad la socoto dhegeyste abaalmarintaada waad heli doontaa qadka xiga dhegeystaha ku jira ayaan fursad siinayaa barnaamijkiinu waa barnaamijkii gaarka ah ee ka hortagga musuq maasuqa wuxuu musuq maasuq yahay siyaad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuq waa hagaag qaadka teleefanada iyo dhegeystayaasha ayaan weli fursad siinayaa dhegeystaha xiga ee qaadka ku jira ayaan jeclahay inaan fursad siiyo halow salaamu calaykum walaal raadiya iska fogey codkaagan sar u qaad magacaaga iyo deegaanka naga soo wacayso axmed barnaamijka ma la socotay axmed raadiya iska fogey amba iska baktiya si aan isku maqalno aye axmed soo dhawow waan ku maqlaa axmed barnaamijka dala socotay fikirkaaga fikirkayga daakadiisu waxay tahay musuq maasuq inuu aad iyo aad u xun yahay sheekadana si fiican ay u socday in dad la siiyey maxay dhahay dad la siiyey suuq camal kadibna lacag laluushi laga qaatay marka arrinta noocaas oo kalea sidee loogala talin karaa hay-adaha ay qusayso waxaa loogu qaashan karaa in wacyigelin fara badan la siiyo shaqaalaha dowladda ugu dambeyntii sidee isleedahay musuq maasuq o dhan waa looga hortegi karaa waxaa looga hortegi karaa in wacyigelin fara badan la siiyo seminaaro fara badan la siiyo shacabka iyo dowladda wuxuu musuq maasuq yahay siyaad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga marsataan micnuhu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal mas-uuliyadiyo xilkoosi kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha loogu dhaco qadka xiga dhegeystaha ku jira ayaan jeclahay inaan fursad siiyo halow salaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد العزيز فرسمه قانك دمان دقيستياش وحان دلله يقلا وناكسن رمضان وناكسن رمضان وناكسن ولا مقعاقة وسهرة مع المحمد دقمة يخشيد سهرة برامج كمال سعتي سواء هيا برنامج كوان لسعودي ما سوقنا معنا وح وناكسن شاكذا أنا وان دقيسنا يسأدي آد معاكو صاحب سنة قلبت شاكذا sheekada waxay ku saabsaneed macnaha yacni inay dawladdu dhul dhisto ka dambana dadka masaakiinta qof loo xis saaro dadka masaakiinta ah yacni loogu talagalay in ay degaan guryahaasi balse ninkii loo dhiibay oo lacag ka doonayo ou leeyahay yacni waxaa qofkii oo lacag san bixiyo guryaha waa la dhisay qarashaa lagu bixia marka qofkii degaay hal mar lacagtaas ha dhiib ka dambana ha iska dego saasay ay u ekeed sheekada sidee marka arrintaas musuqmaasuq noocaas oo kale lagu hortegi karaa isleedahay waa laga hortegi karaa haddii bulshada shacabka iyo dowladaba ay si hadaagsan ay garab isaga siiyaan in la wacdigeliyo
oo ninka asiga hay'adda iyada maxaa dhahay soo agaagantay in dadka masaakiinta ay maalgeliyaan oo guryo u dhisaan oo dejiyaan ay ku tabarucaan inay ayaga naftirkooda nin kamida maalin walbaba uu soo kormeero oo dadka soo degaya meesha uu la socdo. waa maasantaa waan kaaga mahadcelinayaa fikirkaaga. hallo wuxuu musuq maasuq yahay siyaad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnuhu haydin dhacee ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal مسؤوليتي وحلقة سكالي لما مرون برشاد الله كلام مرون مني ما وحب الله بقبن كان مهرانا يو وضها إحلو waa hagaagi dhegeystayaasha su'aalaha haddii ay ka jawaabaan abaalmarin ayay mutaysan doonaan saddexda su'aalood dhegeystayaasha waxaan ka codsanaynaa haddii barnaamijka ka soo qayb galaan oo ay su'aalaha ay ka jawaabaan inaysan qadka ka bixin si markaa aan taleefanada u kala qoranno waxaana dhegeysta barnaamijka galabta kala soo xiriiri kartaa 64 25 55 qadadka taleefanadana way furan yihiin wuxuu musuq maasuq yahay siyaad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnuhu haydin dhacee ninkii moogow qadka xiga dhegeystaha ku jira hallo salaamu calaykum. calaykum salaam. walaal magacaaga iyo deegaankaad naga soo wacaysa marka hore. barnaamijka ma la socotay? ayay barnaamij la socotay bal soo gudub sheekada waxay ku saabsaneed marka hore. hallo waan ku maqlaa. hallo waan ku maqlaa fikirkaaga iyo sheekada waxay ku saabsaneed idii barnaamijka la socotay. dhegeystahaasi waana maqli waayey sidaa daraaddeed malaayiin jeer raaliha naga noqdo waan gudbaynaa dhegeystaha xiga ayaan fursad siinaynaa si barnaamijka markaasi uu kaga qayb galo maadaama dhegeystii hore aan ismaqli weynay dhegeystayaasha dhanka fariimahana fursad ayaan siin doonaa ayaga qudhooda oo fariimaha inoo soo diraya balse kuwa qadka taleefanada ayaan weli guda jirnaa. hallo salaamu calaykum. walaal magacaaga. hallo hallo dhegeystahaasi isna qadka ayaa markaasi ka go-ay. hallo galab wanaagsan. walaal magacaaga iyo deegaankaad naga soo wacayso. waan ka xunnahay dhegeystayaasha waxay naga soo wici karaan 64 25 55 hadda dhanka fariinta usoo noqdo dhegeystahan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa Ilhaan Daahir waxaan ku suganahay suuqa xoolaha ay leedahay anigu fikir ahaan waxa ila tahay in musuq maasuq uu yahay waxun sheekada galabtan waxay ku saabsanayd musuq maasuqa suuqyada dawladda ay bixiso iyo sida markaasi loo musuq maasuqo waxaana dawladda ugu baaqi lahaa in ay markasta dad daacada xilalkaasi u dhibto waa maasantahay aan leenahay sida saxda ee markaa barnaamijka ula socotay Ilhaan Daahir waan kaga mahad celinaynaa dhegeystayaasha dhanka fariimaha asalaamu calaykum magacaygu waa Maymuun waxaan leeyahay musuq maasuq waa xaaran hal iska daayo Ramadaan Kariim waa maasantahay aan leenahay asalaamu calaykum magacaygu waa Mucaawiye Ibrahim waxaan ku suganahay degmada Hodan musuq maasuqa ayaan kala soo gaaray laakiin waa wax aan wanaagsanayn adna waad maasantahay. wuxuu musuq maasuq yahay siyaad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnuhu haydin dhacee ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal مسؤوليتي وحلقة سكالي لما مرون برشاد الله كلام مرون مني ما وحب الله بقبن كان مهرانا يو وضها إحلو بدعو
qaybaha dambe aynu soo gaarnay dhegeystaha qad ku jira halow galab wanaagsan galab wanaagsan wacan walaal magacaaga magacaygu waa Fawziya oo joogta degmada Iskele Fawziya barnaamijka ma la socotay haye Fawziya dharkeenley haddii aad barnaamijka la socoto soo dhawow waan ku dhawahay marka hore musuqmaasuqa waxaa keenay dawladda in ay dhul oo maxay ahayto dhulkaasoo maxay ahayto dad oo badan dagaalo dadkaasina waxay ahaayeen in ay lacag oo qof oo gatay camal waa tahay Fawziya marka guud ahaan musuqmaasuq sidee looga fogaan karaa waxaa looga fogaan karaa in la joojiyo dadka oo maxay ahayto wada musuqmaasuqa wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal mas-uuliyadiyo xilkoosi kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha loogu dhaco ayuu musuqmaasuq yahay waa hagaag qaybaha dhanka fariimaha assalaamu calaykum magacaygu waa daadir cali waxaan ku suganahay xaafadda tawfiiq ayuu leeyahay anigu waxay la tahay musuqmaasuq inuu yahay wax markaasi aan wanaagsanayn sheekadan waxay ku saabsanayd musuqmaasuqa suuqyada iyo sida markaasi wax laysku dabamarinayo waana ka xumahay in Soomaaliya musuqmaasuq ka sii jiro assalaamu calaykum magacaygu waa fahmo xasan waxaan ku suganahay degmada yaaqshiid musuqmaasuq waxaa loo gudbi karaa ayay leedahay guud ahaanba in looga fogaado maadaama la yahay ummad islaama waa mahadsantiin dhammaan sida barnaamijka aad uga soo qayb gasheen qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban guud ahaana barnaamijkii gaarka aanu kaga hadlaynay dhibaatada musuqmaasuq uu leeyahay sida looga hortegi karo dhegeystayaal galabta inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waxaa igala qayb qaatay qadar xuseen axmed qadaryar oo dhanka farsamada gacan iga siinaya waxaan la socodsiin anigu Cabdicays Cabdullaahi Maxamed Riili waxaa marti inoo ahaa mid ka mid ah xubnaha ergooyinka gobolada dhexe oo barnaamijka markaasi aynu ku casuunay sidaa daraadeed waa baadii barnaamijku isku duuban oo idin leh nabadgelyo ninkii moogowna maqal